turkey gaad ma ka socoto kan kuugu horeeyo waa mid ku salaxayo walaalka kan shoot ka qabanayna waa Cristiano Ronaldo meeshan badankood dadka markaan arkay Soomaalida inta imaada lagu hayo kaalaya guriyaha gata waa raqiis darada ma aha ninka Soomaaliga kale oo ku sheegayo kaale imo ku dhahayo ayaa jambal ku tuurayo oo inuu ku qabto rabo ayakana kaaga daadiyo asagana ka daadsado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is your boy Fabs and I'm going to do this channel كعصب تحفظن لايك صار سبسكرايب كنا هيلوبين حدي أدل سعود القناة كان يقرأ الموضوع انتيرا مقناة وحيالهم مشغول صنع. Anyways ما أنتوا حنربا إن وحيالو إذن كي جاهل بحي وحني أن صور كي فيديو جي هراء أو أن تركي كهاد لي dareemihii ugu horeeyay horta aan ka dareemay mas'aan ka arkay dalka Turkiga iyo wixii baan ka hadlayay marka qofka haduu wax si yar degnaado waxyaalo waxa dareemaysaa dadka aan arki jirin maadaama aad qof deegaanka ahaan aad la soo dhaqantay mas'aad aragtay waxyaalaha dadka degan Soomaalida qaasatan lagu sameeyo videogigaas waxay ahayd waxyaalo positive haddana wixii negative ka ahaa ayaan rabaa inaan iga sheekeeyo waxyaalaha runta oo Ankara siba magaalada la yiraahdo Ankara Turkey ka socoto aniga aan ka arkay horta dhibaatada mase caqabada ugu horeyso ay Soomaalida soo wajahdo oo waayahan loodan bari soo badanaysa ayaa waxay tahay taksiilayaasha qofku markuu ku arkay inaad Soomaali tahay wuxuu automatically ku maleynayaa that inaad millionaire tahay ya inaad millionaire tahay markii aad meel lahdigay meeshii asagoo de street aadi karo ayaad waxa arkaysaa qofkii taksiilihi kor ka soo wareeganayo meeshii $10 ahaan jirtay example $20 bal uu keenay meeshii waa caqabada koowaad aniga aan ka dareemay inta aan ku noolaa mase aan joogay dalka Ankara Turkey 2 bilood tan labaad dadka dibadda ka imaanayo sida anigoo kale oo guryo rabaan inay ka gataan dalka Turkiga horta waxyaalo badan baan arkay dad si u kala gadanayaan sida xaaladda loo kala sameesto horta number 1 guriga Turkiga ninka Turkiga markuu gadanayo waa 20,000 18,000 20,000 laakiin qofka Soomaaliga markuu gadanayo waa 45,000 meelaas bay ku tagaysaa أنا أقول لك مركز حسابته. For example قولي سديد تونا سويس كأنك وحلي خوف صومالي ولا كذا يا. لبعتنكم بنقصيننا. كو. نينك صار هايو لبعتنكم بوسارنا يا. مسه مرمرك قاركود نينك قولي له مركو دريم مس وقاعد خوف صومالي إنه كذا نيو قولي يسوي كذا يا. أفرتن كون $1 أيو كذا يا. نينك دلالك لعبوا كاسي خبر. ويل كير أو لغة تركيش كيكو ترجماني Soomaaliga asaguna waxba ugu jirto waayo Turkishkii buu afiiqana bicitaanka lagu dhacayo ninka dhan uu kala turjumayo qasab inuu cunto lacag fiican inuu helo marka taas waa taas ya tan labaad dhibaatada kale oo dadka soo wajahday oo haddadan labadan bari aan kama maqlay dhalinyarada qaarkood in dadka Turkishka ya ay macnaheedu walaaltinimada naloo qabo sidaan videoga ku dhahayay walaaltinimada naloo qabay in la soo dhaweynayay walaaltinimo sax macnaheedu ma aha waa mid ku dhisan lacagta iyo economiga magaalada aan keenay oo anakii dib noo geysanaysay مثلا macnaheedu Soomaalidu horta hadaan aan waxaan ku dhahanay beec musbaarka wax la dhaho qof baa waxa laga rabaa gurigaan kale inuu ijaarto ninkii waxa leeyahay gurigu waa la bixiyay $200 baa lagu ijaartay ninkan dibaddu ka imaaday masaxamar ka imaaday lacag waxa la wataa ilaa macnaheedu iska soconayso muhiimadu waxaan ka wadaa ninkii waa la beec musbaaraya waxa leeyahay $300 baan ku siinaya ninka Turkishka markay dhiiba oo kala baxayo wuxuuna dareemayaa dadkan macnaheedu inay ma taqaana qof oo gambling ku jiro just gambling inuu kan miyaha mid ka weyn hoo
marka siyaabahan miyaa isdhahay mid annaka aan isku keennay mase mid dadku nagu dhibaateynayaan laakiin tan aan isweydiiyaa waxay tahay dadka kale ajnabiga ah matalan dadkan West Africa ka imaaday mase dadkaas North Africa ka imaaday markii wax laga gadayo shaatiga iyo suwaalka iyo jeanska iyo kabaha wax simple ka qofka shopping uu ku aado ninka Soomaali markuu yahay horta qofka markii Soomaalinimada laga dareemo waxa la weydiinayaa oh Somali of course Somali we're very proud yes Somali oh brother so dhawale maca laga siinaa taksiila xataa ku soo qaaday ku gaaday inuu Soomaaliya marka isku sheegtid ma soo ku dareemo heesa ku gaar ah oo Soomaali buu wada uu ku daaraya sad u joogiga u dajisatid inuu xataa xamar ka imaaday masaadina aan Soomaalidan kale ka wada imaadeen waxa jeceshahay inaad magaalada fiirisid inta aad magaalada ku mashquulsan tahay sawirada iyo fiidiyow qaadaysid adna jeebkaaga lagu mashquulsan yahay marka dad badan oo ku faa'iiday way jiraan Soomaaliya of course dad badan oo ka cabaadayo Turkey sida loo galay iyo waliba dad Soomaali kale ah waxa way walaalka oo kawaanka ku geeyo marka anaku waan naqaanaa xadka ilaa aan sameyn karno inaan lacag sameeyno waayo Soomaali baan nahay isku leeyna lacagtaas oo kale laakiin waxaad arkaysaa qof turjumaadii darteed wax ku kala sameynayo adiga lagu dilayo meel kastana lacag laga sameynayo labadooda u taala adiguna luqadii ma taqaan so xaggaas bay arintii Ankara aan ku soo gabagabeynaya caawo oo habeenkii ugu dambeysay Ankara oo aniga aan rabay honest review of Ankara mase Turkey in general marka su'aasha aan rabo dhalinyarada mase Soomaalida badanko oo hadda dhehayso inay Turkey u soo ordaan inay macnaheedu guri ka gataan mase u soo guuraan oo deegaan ka dhigtaan waxaan ku leeyahay waxa laga yaabaa noloshaada sida wax arko inay ka duwan tahay si aad wax u aragtid marka fadlan bal ka yara fakar su'aalo weydii ya markii qofku ku soo qaadayo ha iska aaminin qof kasta hadduu Soomaali ahaado iyo hadduu Turkish ahaado tan ugu weyn oo dad badankood ii sheegan in lagu dhibaatay mise lagu dhacay lacagta qiimaheeda aysan kala ogeyn qofkana dib bay aad u mudan tahay macnaheedu qofka hadduusan aqoonin lacagta qiimaheeda tahay waxa ugu horeysa sameyn kartid lacagta soo sarifo ya hal biyo isbrayd mase hal biyo kooka gado kookada qiimaheeda ay joogto waa arkaysaa maqaayadta saxanka caadiga ee orgreys ajashahay waad arkaysaa qiimihiisi hadhow taas adoo ka cabirayo ma aragtay bal arintaada xaliso yaana lagu gaabin marka Soomaali weyn inta Turki u soo socoto inta aniga aan fikrad ka qabo magaalada Ankara dalka Turkiga maxaa la dhaga fajignaada ma laha anyways macni aan ka hadlayo waxay tahay ku socdo maskaxdiina yaan la gaadin meeshan wal isgaadaya haddaan ku sheegaya Turkey gaad ma ka socoto kan kuugu horeeyo waa mid ku salaxayo walaalka kan shoot ka qabanayna waa Cristiano Ronaldo Mr Turkey waa anyways kusoo dhawaada kanaalkiina waaye video badan way soo socdaan travel vlogs badan way soo socdaan waana ka yara mashquulsanaa inaan video duubo marka fadlan bye bye waa dhamay xisaabti waa haysta Turkey Ankara reviewgeedii tomorrow meel kale aan socdaa waana ka warqabi doontaan mar dhow